Asalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada dhammaan meel walba daafaha caalamka ka joogtiin. Maanta waxaan ka hadli doonaa barnaamij ku saabsan ganacsiga. Sida aad la socotaan, sanadihii ugu dambeeyay adduunyadu waxay ku sii siyaadaysay hadba dhinaca tiknoolajiyadu ay u socoto. Waxaa ganacsiyada ku soo siyaaday wax aad iyo aad u fara badan. Sidaa darteed, maanta waxaan uga hadli doonaa 4 qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad wuxuu ku socdaa dadka ganacsatada ah ee yaryar ee ganacsiga yaryar haysta. Qodobkaas waxaan ku falqayn doonaa faa'iidooyinka ay leedahay ganacsiga iyo waxa tiknoolajiyadu maanta ay ku soo siyaadisay ganacsiga, sida horumarinta iyo noocyada kala duwan ee softwareska. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii fikradaha ganacsiga ee aad kala socon jirteen Cabdicasiis iyo Facebook channel-keena TVTube. Sidoo kale asxaab ayaa nagala soo xiriirtay fariimahooda aan akhrinay dhanka Instagram-ka. Dhammaantiin waan kaga mahadcelinaynaa runtii falaqaynta iyo sida qalbiga wanaagsan aad mar walba noola soo xiriirtaan. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Barnaamijkii ka horreeyay waxaan ku tilmaanay qodobo aad iyo aad u faa'iido badan oo ay dhalinyaro badan ka faa'iidaysteen, sida ay sheegeen dhalinyaro ila soo xiriirtay magaalada Muqdisho iyo waliba magaalada Hargeysa. Sidoo kale barnaamijkaas waxaan ku soo bandhignay 14 talo oo wax u taraysa ganacsigaaga. Tusaale, haddii aad tahay qof dhalinyaro ah ee waxbarasho ku jira, waxaad samayn kartaa ganacsi adig personal ah oo ku gaar ah. Kadibna waxaad ku manage gareyn kartaa noloshaada iyo waliba inay kuu noqoto dakhli aad isaga bixisid waxbarashada iyo inaad naftaada ku horumarisid. Marka fikradaha naga dhiman ee asxaabtu ay noo soo sheegeen waan tixgelinaynaa. Haddana ku soo dhawaada 4 fikrad ee aan idin hayno. Fikradda koowaad waxay tahay walaalayaal, sidee aan ku heli karaa dakhli maalinle ah kaas oo aan naftayda ku horumarin karo. Waa marka koowaad waxaad samaynaysaa walaal inaad waxa kugu yar ee maanta aad heli karto, maadaama qof dhalinyaro ah ee wax baranaya aad tahay. Waxa kugu dhow aad heli karto inaad iska leedahay inaad u beddesho dakhli inaad u beddesho. Tusaale ahaan, waxaad haysataa dhar fara badan, shaatiyaal, sarweelo iyo jaakado iyo waliba wixii la mid ah, kuwaas oo aadan isticmaalin ama size-kaaga ka yaraaday. Kuwaas ayaad waxaad dib ugu celi kartaa suuqa. Kadibna waxaad u samayn kartaa qiimo aad u hooseeya in aad ku iibiso, taas oo ka caawinaysa in dakhli meeshaas uu ka soo galo. Sidoo kale waxaad asxaabtaada la wadaagtaa channel-kaaga si ay subscribe u saaraan. Aad iyo aad u mahadsantahay. Fikradani waxay la soo wadaagay Cabdinuur Cabdullaahi oo Muqdisho jooga. Aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin. Waa mahadsantihiin.